waxbarashada inay deen qaataan mawaadiida ugu koowaad ama asaaska koowaad oo loo qaadan karo deen waxaa weeyaan in lagu fuliyo mashaariic wax ku ool ah oo hadhow deenta bixin karto mashaariicda waxaa ka mid ah in jid maaragtay la dhiso ama mashruuc kale oo wax soo saar leh si hadhow ay dawladdii u bixin karto culeysna uusan u fuurin deenta laakiin haddii recurrent expenditure waxa loo yaqaano oo qarashaadka ku baxo haddaad u qaadato deen lacala mushaar baa deen usoo qaadatay mushaarna hadhow wax maaragtay mashruuc oo soconaya ma aha waa wax intii hal mar la bixiyo oo haddana dib u soo laabanaynin liability-ga waxay dhahaan weeyaan marka sidaas darteed waxaan aaminsanahay in dawladda ay deen qaadan karto laakiin shuruudda ugu koowaad inay noqoto inay ku qaadato wax mashaariic oo hadhow wax soo saar yeelan doono insha allah.